xiisada Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya meeshii ugu xumayd abid ayay maraysaa marba marka ka dambeysana xiisadu cirka ayay isku sii shareeraysaa. dowladda federaalku markay ku soo fashilantay Raas Kamboni waxay bilowday qorshe kale oo ay ka bilowday gobolka Gado oo ka dhan ah kooxaha khawaarijta iyo Axmed Madoobena go'aan adag ayuu kala hor yimid waxa uuna wadaa qorshayaal uu ku fashilinayo qorshaha dowladda ay ka wado gobolka Gado. odayaashii ogaadeen hadda unbay indhaha kala qaadeen Axmed Madoobe dooni mayno ayaa ka socota magaalada Nairobi iyo Garis iyo waliba Muqdisho. waxay si weyn uga hor imaadeen qorshaha Axmed Madoobe ee ah sanad walba hebel baa soo duulay reer hebel baa nagu soo duulay reer hebel baa nagu soo duulayna reer Jubbaland hadda way fahmeen oo qorshahaasi Axmed Madoobe tiriibkan uma gadmayo waa laga hor imaaday. war soo dhawaada wadayaal waxaan rabaa muuqaalkan inaan ku dul istaago xogihii ugu dambeeyay isdooyinka siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. xiisada Jubbaland iyo dowladda federaalka oo meeshii ugu xumayd abid maraysa marba marka ka dambeysana cirka isku sii shareeraysa. dowladda federaalku markii ay ku fashilantay qorshihii Raas Kamboni gobolka Jubbada Hoose ciidanka lagu geeyay ceeb weyna ay ka soo gaadhay waa la tashaday qorshe kale ayaa laga bilaabay gobolka Gado. maalmihii ugu dambeeyay gobolka Gado wuxuu wajahayay culaysyo siyaasadeed iyo sidoo kale loolan siyaasadeed oo u dhaxeeya dowladda federaalka iyo Axmed Madoobe oo 14 sano wax galaangalo fiican aan ku lahayn gobolka Gado aan danaynaynin dhibaatooyinka gobolka Gado ka taagan ayaa wuxuu bilaabayba in uu kula loolantaba dowladda oo ka hor istaago qorshayaasha ay doonayso in ay ka bilowdo gobolka Gado ee ka dhanka kooxda khawaarijta iyo waliba Axmed Madoobeba. waan dul istaagi doonaa isdooyinkaasi. dhanka kale odayaasha beeraha ogaadeen oo shirar maalmihii ugu dambeeyay uga socday magaalada Garissa, Nairobi iyo waliba Muqdisho ayaa bayaano adag ka soo saaray qorshaha Axmed Madoobe iyo sidoo kale isdooyinka siyaasadeed ee Jubbaland iyo dowladda federaalka. eedayn culus ayayna Axmed Madoobe tusha uga tuureen waxayna ugu baaqeen ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Jubbaland iyo dowladda federaalkuba in midnimada laga shaqeeyo isla markaana laga xoreeyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo sidoo kale kooxaha nabadiidkaaba. waxay sheegeen oo ay isla meel dhigeen in Axmed Madoobe loo baahan yahay naftigiisa in laga xoreeyo Jubbaland deegaanada Jubbaland ee kooxda argagixisada gacantooda ku maqan la xoreeyo. hadallada qaybo kamid ah odayaasha dhaqanka ee meelahaasi shirarka ku yeeshayna qaybo kamidana wayna la wadaagi doonaa. soo dhawaada muuqaalka la exara aragtidina noogu reeba qaybta commentiga. aynu ku bilownay wali waxaa taagan isdooyinka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya. waxaan ogsoonayn oo asbuucii la soo dhaafay hadalhaynteedu ay taagnayd qorshihii dowladda federaalku ay ku geysay ciidanka Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan magaalada Raas Kamboni ee gobolka Jubbada Hoose. ciidanka halkaa la geeyay in badan oo waliba kamid ah taageerayaasha dowladda dhexe ma aysan ku taageersanayn in ciidan halkaasi la geeyo. saraakiisha ciidanka Soomaaliyeed ugu sareeya xogaan ka helayna waxay sheegayaan in iyaga naftirkooda ay isku khilaafeen oo go'aanka ciidanka halkaasi lagu geeyay ay lahaayeen shakhsiyaad dhowr ah oo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre uu kow ka yahay. si kastaba dowladdu halkaasi waa ku soo fashilantay waa looga gacan sareeyo dhulku waa laga qabsaday oo ciidankii Axmed Madoobe daacadda u ahaa ayaa Raas Kamboni la wareegay kadib maalmo ama asbuucyo ay ciidanka dowladdu halkaasi ay ku sugnaayeen. ceeb xoogan ayaa dowladda federaalka ka soo gaadhay ciidankii Raas Kamboni la geeyay. taasi markay soo afjarantay ciidankiina Kenya intay galeen la daadgureeyay dowladdu waxay bilowday qorshe kale oo ah in gobolka Gado ciidamo laga dejiyo oo halkaa howlgalka laga bilaabo. arrintan iyo shaxdeeda waxaa la xaqiijiyay inuu leeyahay taliye Odawa oo horay ula soo shaqeeyay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markii horena isagu la sheegay inuu ka biyadiidsanaa ciidankii Raas Kamboni la geeyay oo isagu uu yidhi Baardheere, Ceelwaaq, Beled Xawo iyo deegaanada gobolka Gado meelaha ugu muhiimsan aan ciidamada geyno. ciidanka markaa hadda dowladdu waxay qaadatay go'aanka isaga ee markaasi soo babaxayay arrimahaasi la xiriiro ciidamo ayayna dowladdu ku soo daadgureynaysaa gobolka Gado gaar ahaan Beled Xawo iyo Baardheere. labadaas istiraatiijiyadood ayay dowladdu hadda ciidamadii ugu badanaa ay keentay qaybana hadda ay keenaysaa.
ciidanka baardheere ama gobolka gadaba waxay qaadatay madaxda dowladdu qaateen sida la ii xaqiijiyey in ciidanka lagu xoreeyo caasimada Jubbaland iyo degmooyinka kaleeto ee gacanta khawaarijta ku jira kadib markii dhulka la xoreeyay wixii ka dambeeya in Axmed Madoobe loo soo jeedsado markaas oo isaga dhinaciisa markaas loo soo jeedsado dowladdu markay qorshahaasi ay qaadatay dhulka lagu xoreynayo Axmed Madoobe dhaqaaq buu isagana bilaabay gudoomiyuu soo magacaabo gobolka Gadow soo magacaabay ciidamada uu soo daadgureynaya waxa la sheegay waliba in ciidamo badan uu doonayo inuu keeno magaalada Ceelwaaq kadibna uu xadka Kenya soo marsiyo oo balad xawana uu dagaal ka abuuro ciidanka dowladda ee balad xaw ku sugan oo halkaas dagaal uu ku qaado ayuu qorsheynayaa la leeyahay Raas Kamboni ayuu si fudud Axmed Madoobe iyo ciidankiisu ay kula wareegeen qorshaha labaad waxay doonayaan inay balad xawo ay la wareegaan oo ciidanka dowladda ay dagaal ku qaadaan iyo dadka shacabka ee dowladooda Soomaaliyeed taageersan ee muddada badan u sacabatumay Axmed Madoobe ee wax horumar ah iyo wax ay ka heleen dowladnimo iyo sabstoon aan ka helin inuu dagaal ku qaado colaad ka dhaxlido oo xabad iyo uu la dhaco ayuu qorsheynayaa Axmed Madoobe wuxuu kala qorsheynayaa sidii baardheere shacabka degan oo u hubayn lahaa uga horkeeni lahaa oo ciidanka maadaama baardheere isagu uusan ciidan diyaaradana uu ku geystan oo sanaysan baardheere uusan ciidan geyn karin wuxuu doonayaa shacabka inuu hubeeyo oo halkaas uu ka horgeeyo ciidanka dowladda Soomaaliyeed ay halkaas geysay runaantii marka laga fiiriyo baardheere meel hadda Axmed Madoobe dhaqso looga soo gaari kara ma aha laakiin waa meel laga xoreyn karo caasimada Jubbaland magaalada Bu'aale iyo degmooyinka kale ee Jubbada Dhexe laga xoreyn kara weeye oo ciidanka dowladdu halka istiraatiijiyad ayay u tahay in magaalooyinkaasi ay imaadaan laakiin Axmed Madoobe oo ka duulaya inaysan dowladdu qabsanin caasimada Jubbaland Bu'aale inaysan gacanba ku dhigin oo waxa weeye aysan garaangalba ku yeelanin oo markaasi ka cabsi qaba dowladdu haddii ay u soo dhaqaaqdo inay Bu'aale qabsataan ay halis ku noqon karto ayaa doonaya inuu qorshahaasi ishortaago oo uu fashiliyo arinta waxaa ka hadlay odayaasha dhaqanka ee beelaha ogaadeen oo maalmihii ugu dambeeyay shir ku lahaa magaalada Garissa Nairobi iyo waliba Muqdisho oo shirarkoodina burtiyeedka ka soo saareen ku cambaareeyay ishortaaga Axmed Madoobe uu ishortaagayo xoreynta deegaanada Jubbaland ee gacanta khawaarijta ku maqan waxa sidoo kale ay si weyn u cambaareeyeen 13 sano oo Kismaayo la fadhiyay iyo wax qabad la'aanta oo Axmed Madoobe hadana ku sii doonayo kursiga inuu ku sii joogo waxa sidoo kale ay taageereen mowqifka dowladda federaalka iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed Xamza Cabdi Barre oo isagu runaantii ay ka go'an tahay markii laga qiimeeyo in Jubbaland isbedel ay hesho si kastaba ha ku imaadeen odayaashu bayaanka ay soo saareen oo isku dhinac u dhacaayay waxay si weyn u cambaareeyeen falkii xumaa ee argagaxa lahaa ee qaranka Soomaaliyeed lagu ceebeeyay ciidankii Soomaaliyeed ee Raas Kamboni lagu weeraray iyo sidoo kale qorshayaasha Axmed Madoobe ee ah Kismaayo iyo Afmadow aan isla farfadhino isbedel yeesan helin shacabku horumar yeesan helin dhulka yaan la xoreynin oo cadawga laga xoreynin yeesan bulshada reer Jubbaland hadleen cidii hadasha hal la dilo hal la tarxiilo qorshaha nidaamka noocaasa ee 13 sano Kismaayo ka jira ayay si weyn u cambaareeyeen ayna ka hor imaadeen Axmed Madoobe markaan qiimeeyno taageerada maanta uu haystay waa koox yar oo 14 sano ama 13 sano Kismaayo uu joogo naas nuujid haysato maartay wixii imaada wax laga siiyo oo ayagu shilinkooda ilaashanaya taageero kale oo Jubbaland uu ka haysta malaha bulshada reer Jubbaland marka waxaan rabaa inaan ugu baaqo war dowladdu siyaasadeedu haba khaldanaato dowladda federaalku xoogaa siyaasad xumaba ha ku jirtay haddii dowladdu howlgal lagu xoreynayo deegaanada maqan iyo caasimadda Jubbaland ay bilowdo war shacabku uu iska rabtaagan rajo taayay gama sokayso dhulka Soomaaliyeed meelaha ugu badan ee khawaarijtu ay haysato waa Jubbaland meel kale maaha Axmed Madoobe in la xoreeyo diyaar ma aha Axmed Madoobe dhaqaaq buu bilaabayaa markay dowladdu dhaqaaq bilowdo markay aamustana waa dhiganaya ciidankiisa waa xareysanaya hal shilin inuu kaga baxo dooni maayo Axmed Madoobe hal shilin hubka xataa lagu tabarducay la siiyo ee tabarducaada loo siiyo wuu iibsadaa Axmed Madoobe waa inta casho meesha u tagay uma tagin inuu u adeego bulshada reer Jubbaland uma tagin bulshada reer Jubbaland inay nabad ku noolaadaan uma tagin bulshada reer Jubbaland inay
waxa weeye xuquuqda ay u sinaadaan uma tegin bulshada reer Jubbaland inuu cadow ku xoreeyo umana joogo ilaa iyo hadda waa nin tabcasho ku jira waa nin aan qorshihiisa ogaanay waa nin dhamaantiinba wada ogsoontihiin waxa laga faa'iideynay ay tahay cuburin iyo dadka inuu laayo haddana wuxuu bilaabayba in dalalka dibadda xataa oo askar u adeegsado lacag ku bixiyo oo uu yiraahdo soo qabta hebel soo qabta ama dhalinyaro uu tooriyo wato uu dhiibo ayuu haddana bilaabay qorshaha baa socda oo Axmed Madoobe uu ka wadaa meel walbuna ka wadaa waxa weeye oo wadamada dariska uu ka wadaa waxa la rabaa marka bulshada reer Jubbaland war midnimo ayna deeqda oo wada jir bayna deeqa oo wadankeenu waa inaga badan yahay oo waa inagu filan yahay cadawga aan iska kicino oo aan iska xoreyno labadan kooxood ee Jubbaland ku habsaday aan iska xoreyno ee heshiiska ku ah ee qaybta kala qaybsaday aan iska xoreyno war ilmaadayaal qabiil waxba inoo tari maayo Jubbaland qabaa'ilada dagaay waa ku wada filan yahay hadii maamul cadaalad la helo dawladnimo ayna deeqda guruubina ma deeqo waraawnin ogaadeen aan ahay waxa ma qariyo runta ay sheegayaan Axmed Madoobe la dhashay walaalkay weeye laakiin ku taageeri maayo dulmiga ku taageeri maayo wax qabad la'aanta ku taageeri maayo kala qaybinta bulshada uu kala qaybiyay ku taageeri maayo dhulka wargagixisada u saxiixay oo la shaqeysanayo ku taageeri maayo dib u dhaca dhulkeena ku imaaday Jubbaland anigu kuma taageerayo ilma dareeyaw kaca oo waxa weeye isbedel ha loo istaago isbedel waa in loo istaago weeyaan waa in Jubbaland isbedel uu ka dhaco Jubbaland isbedel waa inay heshaa ilma dareeyaw kaca oo Jubbaland waa inay isbedel heshaa ciday doontaba ku gaanka qabato waa in la helaa hoggaan ka duwan nidaamkan hadda dhisan ee qalafsan qaloocan guracan ee qaabna lahayn war xukuumad walbo dawlad federaal u maato dagaal buu ina galiyaa wuxuu yiraahdaa Rebel baa inagu soo duulay Rebel baa inagu soo duulay Rebel baa inagu soo duulay war ma Rebel baa inagu soo duulay waliga ku jireynaa waligeed ma waxaan taagnaanaa Rebel baa inagu soo duulay goormaan dadteena qabsanaynaa goormaan shacabkeena midaynaynaa goormaan dhulkeena xoreynaynaa goormaan amni helaynaa goormaan ilmaheena waxbarasho helayaan goormaan sida dadka kale Soomaaliyeed ay u noolyihiin u noolaanaynaa ma Kismaayo dhulku Kismaayo basamiya oo ayada naftirkeeda iskuul ka jirin oo waxa weeye waa noolal ka jirin oo shacabku aysan heli karin afka ka wada shirotaysan yihiin oo guryahooda loo daadanayo qofka hadlaa habeenkii baa lala baxaya ma waxa lagu jireeyaa war waxa lagu ma jiri kare ilma dareeyaalow aan iska dulqaadno labadan group isma dhaamaane sida argagixisada loo xoreynayo Axmed Madoobe iska xoreyno oo haddaan nahay beesha kumade oo haddaan nahay beesha ogaadeen oo nahay beesha baahale maanta wasaare na siiyay in dad odayaal oo beesha kumada kamid oo baahale kamid ay miidiyaha ka dhahan Xasan Sheekh Maxamuud baan ugu soo duulay arintaasaan raali gelin ka bixinaya xasanow raali ahow sabeen baa kugu xiran oo ma qalantid nagama mudnid arinta ka raalihow gada way dhaantaa in badan bay dawladda ka joogtaa Jubbada Dhexe hal degme ama hal tuule dawladda kama joogto 13 sano ayaa dadkii wadanka deganaa yaa la haystaa waxana ka fiigay oo ka cararay waxa kalena la haystay u yihiin Jubbada Dhexe shantii degma laba kaliba gacanta kaga jirtaa saddexdii kale way maqan tahay Jubbada Dhexe Jubbada hoose Jubbada Dhexe afartii way maqan yihiin waxaan dawladda ka codsanaynaa arinta aydan xil iska saarto ayaga waajib ka saaran yahay ninka joogo gobolkaas haba kama qaban karo waxna kama qaban rabo runtii kuwa laga xoreyn buu koow ka yahay kuwa in laga xoreeyo loo baahan yahay iyo koow ka yahay cadawga al-shabaab kala sheegay asaga koow ka oo in laga xoreeyo loo baahan yahay marka waxaan leenahay